waxaa jirtay maalmo dhexdeera oo aan 27 bisha July bay ahayd aan ka yaabay ururadan maxaa la yiraahdaa ay tusbaxa furana ee jeedo dadna inta baan siga madadash hadii jeer anigu wixii indhahay u arkaan ama dhacdada markaa taagan ayuun bana friyar ama hadal yar ka yiraahdayo markaa munaasib ku ah marka waxaan idhi raggan wada sharaxaan ee shaanshaan ka yimiye shilimaadka bixiye ururadu u shidan yihiin sheekadoodu dheera shaxshaxdoodu badana markay shaacinaya ilaahay abu ii keenay de idilkood lacag adag baa la bixinaya waxaan ku kalifay in lacagta inta la quraan iyo xagga ka keeneen laftirkeeda ayaa isweydiin waana qaarkood waa rag dhalinyaro ah oo aan baagamudo ku ogaayo de maqaxya fadhiisan jiray marka waan u yara qaadan waayay moogti shuquladan istabayaan shaxdan kaliya weyda shiribkeedu badana haddana shiraxa hoosiyo shanshadeedu weyna shisheeyaa u sii jira shookaanta gaariga cidda darawalnaysan garan waayay moogta badina waxyaabaha kalan la yara yaabay waxa weeye idil ururadu waa wada muxaafid majority waa intaan arkay waxay u badan yihiin maxaa la yidhaha ururo muxaafada marka taabudheeduna way yar qaban weyday moogta waxyaabaha aan inaan toy la yara tacajabay bay ka mid tahay hadda jeer waan iskaga facebookgaysan iskaga kaftamaa mar kale niman ishayo oo ururada iyo xusbiyada sababta isugu furanayna ay tahay ishayn dhexdooda iyo iska aarsi ayaan tanna maxaa la yidhaha 10ka meeris ka idhi awr dawaada madoowo dhibidu isku duugay dusha qaarka dambeeto hareeraha ka da'ayso doobiya iyo tumanaya dibnahu isku garaaco doobgulaan hakan maayee sow inuu dudadaa iyo degalka uga tagaa dooda la iskuma raacin iyaduna waxaa jirtay maalmahaas ujeedada ugu weynee aan intaa u yidhina waxaan daawado markaa la furay ururada markaa ka yaraa tan weyn oo ka xoog weynaayo oo ururka ka dabeedna xusbigii muxaafadka ayuu weliba ka tirsanaa ayuu ahaa raggii marmuuqa ka ahaa ama ugu tunka weynaa dhaqaale iyo siyaasadba lagu tuhmayay marka halkaa waxay ka soo baxay in dhabarjab weyni uu ku yimi maxaa la yidhahdaa xusbigii isla markaana dee taa in lagu kala yaacaba mar haddii ay saa u eegta marka taana maalintaa layle saasaan u lahaayo waxay ahayd maxaa la yidhaha maalmahaasay ahayd marka midna ha la ogaado waxaan aan duuduubo berigi hormaan life ama muuqaal kamaan soo bixi jirin mana duubi jirin ni waxaan ku baraarugay tixihii wixii maankaaga iyo garaadkaaga adigu gaar ku lahayd imanka dad baa iska qaata hadday doonaan horta sababtaasaa igu kaliftay anugu cid kalena wejiga kama rabo 12 sano ayaan wax tirinayo aanan fagaaro la imaan oon cidna aanan isku tusin cidna iska dhaadhicin marka horta taas weeye sababta imankaan u duubaa live-ka marka YouTube yaro Maxamed Amiin official la baan u samaystay oo aan ka dhigtay diiwaan aan halkaa ku urursado waxayga wixii madadaalaha aniga ii gaara iyo wixii dee aan dhacdooyinka ka idhi ilaa maalin bay macna samaynayaan haddaysan maanta macna samaynaynin marka horta sababtaasaan imanka u duubaaye maaha si kale waxna kama rabo cidna kama rabo maxay ahayd jaahiyo weji waa uun kayd